bismillahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal meel walbaad naga daawanaysaan halkan waa shabakada caalamiga ee raxriir.com daawadayaal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelan doono musharaxa xilka madaxweynenimo ee Puntland Cabdidaahir Maxamed Yuusuf Yey oo ka mid ah xubnaha xilligan doonaya inay u baratamaan xilka madaxweynenimo ee Puntland ay la doonayo doorashada dhacda sanadka cusub bilowgiisa Janaayo 8 iyadana xilligan la xasuusan yahay in ay ka mid noqon doonto doorashooyinkii musharaxiinta ugu badnaa ee Puntland xilligan ay u baratamaan waraysigan oo shabakada raxriir ay la yeelatay Cabdidaahir Yuusuf Yey waxaan ku weydiin doonaa su'aalo dhowr ah oo la xiriira halkiisa xilligan isugu soo taagay oo noqdo ama qabto hoggaanka madaxtinimo ee Puntland وهرين مدن كسر شبكة عالم الرحلة بتكون. وما تنتهي بسم الله الرحمن الرحيم وما تنتهي ودينا العليا شبكة الرحلة ورئيسان الموسى الجريين ما انتهى كان إن أنه كل هذا الله شانس كان مسيسين أدبوا ما تنتهين دت المان دت آخر استياشة أما استياشة شبكة الرحلة سلام أيام سوتشيدينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطهي المركة أديو أدو محسن من لبدا سلامة سماكا قادرنا واحد جعله يسوي سؤال رسا إنا كويديو بالوهرين واحد سيكوبان إنه ود المرتا تاريخ مولد كاكو كوبان. أنا تاريخ مولد كيو وحوي وحن بكرة الصومالية دوكسيجيرا هوسة إلى دوكسيجيرا سرع وحن وبحي ودك الحديثة. waddanka waxaan ka dhoofay dagaalku waagu socday 1977 waxaan tagay dalka Sacuudiga oo aan wax yar joogay waan ka shaqeeyay iyar sanadii xoogaa muddo ah ka bacdi waxaan galay cariga Mareykanka 1979 halkaas waxaan u tagay inaan wax ka barto waxbarasho aan u tagay jaamacad ayaan ka bilaabay waxaan ku dhameeyay halkaas 4 sano hore oo jaamacadda ayaan ku dhameeyay gobolada Mareykanka gobol ka mid ah ka bacdi waxaan galay graduate school ayaan ka galay magaalada Washington DC American University marka jaamacadeedii 4 sano hore iyo 2 sano ku xigtay intuba waxay ahayd ariga Mareykanka ka bacdi dalkaas aan degay inta aan joogay dalkaas waa ka shaqeynayay halkaas aan ka shaqeynayay oo waxaan qabtay shaqooyin kala duwan aan u shaqeeyay corporationska waaweyn oo Mareykanka qaar ka mid ah iyo dawladaha qaar ka mid ah ayaa ka shaqeynaya meeshaas waxaan bartay iskuulada ka bartay waxay ahaayeen maaliyadda iyaan bartay dugsigii jaamacadda 4 sano hore iyo 2 sano ka dambeysay oo taasuska ahayd intaba waxaan ku sameeyay finance waxaan maaliyadda la yiraahdo waxaan intaan shaqeynayay ku shaqeynayna waxay ahayd maaliyadda ayay ahayd 20 sano ugu dambeeyay waxaan ku jiray management ayaan ku jiray oo waxaan ahaa ilaa iyo heerar sare ayaan ka gaaray shaqooyinkaygii aan ugu wax manage gareeyay ama ha ahaato organizationadii aan hogaaminaynay iyo shaqooyinkii iyo maamulkii marka maaliyaddii iyo budgetkii iyo maamulkii iyo qorsheyntii intaasaan ka shaqeynayay intaan meesha joogay ilaa iyo hadda dhowaan waan ka soo kacay shaqooyinkan iyo shaqooyinkaasay ahaayeen meesha waa deganahay Mareykanka deganahay xilligan waxaa ka mid tahay musharaxiinta u tartamay xilka madaxtinimo ee Puntland oo la filayo 8 Janaayo doorashadu ka dhacdo garowe la isugu tago adiga waxaa ka mid tahay musharaxiinta marka goorma kugu dhalatay hankan inaad isku soo taagtid oo istiraad wax noqon kartaa hoggaanka Puntland oo qabanka arrintaas waxaan u dhalatay muddo waan ugu jirtay waagii hore oo aan tagay dalka Mareykanka sideedaba waxaan ku tala jiray markaas inaan wax soo barto markii aan wax soo bartana aan dalka ku soo laabto markaas waa jaamacadda markaan galay 1979 laabashada aan dalka ku soo laabanay waxaan markaa xiiga ku hayay in aan ka qayb galo wadanka iyo hoggaankiisa aan ka qayb galo ka bacdi waxa nasiib daro waxa dhacday wadanku waa kii galay dagaaladii dictatorial regime-kii meesha ka jiray marka waxa soo dhamaaday ka bacdi dagaalkii Ethiopia waagii aan wadanka tagayay socday wadankii burbur galay waa sii xumaaday ka bacdi arrintii waxay isu bedeshay dagaal sokeeye ka bacdi arrintii waxyaabo kale badan bay isu bedeshay intii ka dambeysay 22 sano soo dhaafay wadanku wuxuu ku jiray qalalaas ku jiray markii aan fiiriyay dhibaatooyinka faraha badan oo wadanku soo maray markii aan fiiriyay isku dayay faraha badnaa oo la isku dayay dawladda Soomaaliyeed in la dhaliyo oo 12 shir lagu qabtay meel kala duwan markii aan ogeyn dawlad ku meel gaar ah wadanka in laga dhisay oo dhowr dawladood ku meel gaar ah isaga dambeeyeen xaaladii ay caga dhigan weyday adeeg weyday mas'uuliyiintii marka wadanka joogayna aheen mas'uuliyiintii hore oo odayaasha ahaa oo iyagu sii gaboobaya
jiil kalena uu soo baxayay oo markaas isbedel doonaya waddanka in laga sameeyo intaasoo dhan way igu jirtay waddanka inaan kusoo laabto oo siyaasadiisa iyo hoggaankiisa aan ka qayb galo haatan 5 sano ugu dambeysay oo ay ka jirtay hadda maamul goboleedka Puntland halka ay ka jirtay waa qorsheynayay in halkan kusoo laabto oo chance-ka opportunity ugu horeeya ama chance-ka ugu horeeya fursadda ugu horeysa oo ah doorashada Puntland oo hadda dhici doonta hadii Ilaahay idmo bisha January 8 waa qorsheynayay in taa ka qayb galo adigu 5 sano baan qorsheynayay arrintan ka qayb galo waxaan haatan meesha ugu joogan saas yahay su-aashaas saasa jeclaan lahayn anigu jawaab waa tahay midabo ama astamaha aad isleedahay waad kaga duwan tahay musharaxiinta kale maxay yihiin oo aad kalsoonida ku qabtid inaad kaga kalsoon tahay ama aad kaga mudan tahay xilligan xilkan fadhi waxaan isleeyahay waa dhowr waxyaalo mid waxa weeye xaaladda dalka ka jirta aad baan fahamsanahay hadday tahay goboladan Puntland aan joogno hadday tahay meelaha kale oo Soomaaliya inteeda kale hadday tahay dowladda qaranka iyo waxa ka socda hadday tahay waddankoo dhan xaaladda uu ku sugan yahay si waxaan u fahamsanahay aad iyo aad u qoto dheer waan ku sheegay 40 sano muddo ku dhow ayaan waddanka iyo waxa ka socda goobjoog u ahaa taas taa weeye midda kale haddii intaas muddo shaqaynayay 30 sano ayaan hadda shaqo ku soo jiray shaqooyinka meelaha silsilaan ka gaaray maamul baan intaa ku dhex jiray waxaan ku dhex jiray miisaaniyad iyo sida loo sameeyo iyo sida loo fuliyo iyo sida wax loo qorsheeyo iyo sida wax loo baagareeyo iyo hoggaan baan intaa ku dhex jiray arrimahaas waa kaga duwanahay musharaxiinta kale qaarkood oo waxaan leeyahay khibrad aan ka shaqaynayay muddo 20 sano ah oo aan wax soo maamulay oo aan dad soo maamulay oo aan arkayay sida wax loo maamulo oo dowladda aan ku dhex jiray oo corporations multinational corporations aan ku dhex jiray oo sida wax loo qorsheeyo sida wax loo baagareeyo sida wax loo dejiyo dad sida loo maamulo intaas aan ka shaqaynayay marka khibrad iyo xaaladda waddanku aan si fiican ula socdo khibrad ahaan sida wax loo maamulo iyo sida wax loo hogaamiyo inta waxaan isleeyahay inaan ku dheerahay musharaxiinta kale waa tahay muddo dheer baa sheegtay inaad ku hamilaysid inaad dalka ku soo laabatid oo siyaasadda ka qayb gashay marka maxaa ugu waaweyn baa oran karaa inaad xilligan masaxa siyaasadda ka soo gudbid waxaa ugu waaweyn xaaladda hadda Soomaaliya ku sugan tahay burburka jira nabad la'aanta jirta iyadoo waddankii uusan isu tagin oo weli reconciliation samayn 20 sano inagoo qarankeennii uusan haatan si fiican u shaqayn inagoo wax jira wax la yiraahdo sovereignty baa jirta oo Soomaaliya hadda ay u muuqato in iyadu dowlad federaal ama dowlad qaran oo shaqaynaysa ayaan jirin dibadahana laga maamulo waddanka Soomaaliya waxay u muuqataa haatan in dibadaha laga maamulo dowladaha dariska gacan xoog leh ku leeyihiin dowlado kale ama European ha ahaadeen ama dowlado kale ha ahaadeen gacan xoog leh ku jiraan dadka Soomaalida waxaan moodaa xoogaa iyaga in loo taliyo oo taladooda ay gacanta ku hayn waddankiina dowlad qaran oo shaqaysa uusan lahayn arrimahaas ayaa ugu waaweyn inaan ka qayb galo sidii dowlad goboleed degan oo wanaagsan oo xasilooni siyaasadeed leh oo maamul wanaagsan leh oo dhaqaalaha kubcisa oo xasilooni siyaasadeed iyo wada hadal shacabka Soomaaliyeed meeshan ka soo gelisa inaan tan ka qayb galo oo aan Ilaahay idinkiis aanu maamulkaas isbedelka soo socda aan wax ka sameeyo ka soo geliyo qarankii Soomaaliyeed iyo baadigoobkiisina aan wax ka soo geliyo hadii Ilaahay idmo ayaa ugu waaweyn waxyaaba halkaan aan joogo musharax Abdullah waxaad ka mid tahay adigu ragga waxay xaydanaya xilka madaxtinimada xilligan ee Puntland marka matalo iyo go'aan adigu ku soo baaran degtega mise waa loolanka markaad aragtay xilligan oo dad badan xilligan isu soo taagayaan wada dhanka ka bilowdayna bal jawaabteedu su'aalahi waxay ku jirtay jawaabihii hore aan bixiyay ilaa iyo waagii 1970 iyo sagaalkii iskuulka markaan galay waan ku sheegay inaan ku hameeyay waddanka markaan wax soo barto inaan dib ugu soo laabto kana qayb galo hoggaankiisa siyaasadeed iyo horumarka waddanka siyaasadeed marka arrintan arrin hadda igu dhalatay maaha waa arrin hadda intii ugu dambeysay Mareykanka aan joogay ka hor intaan tagin baa aan madaxa iga jirtay aan tagay inkastoo markaan nin la yaraa aan ahaa intii ka dambeysay oo aan u joognay waddanka iyo wuxuu dhexmaray iyo dhibaatooyinka socda in isbedel loo baahan yahay in la sameeyo nin kasta ama qof kasta oo Soomaaliya meel kasta ha joogay wuxuu sameyn karo arrimahaas wuxuu ka geysan karo gacan uu ka geysan karo inaan gacan ka geysto waa ray oo arrintaas intaas madaxayga ku jirtay waan qorsheynayay fursadii ugu horeysay oo haatan aan isleeyahay meel waxa joogta arrimahaas lagu soo gelin kara wax looga qaban karana
ودورشة حتى سوسة وبنتلان وموسو عدل. واضح مركز أدفيرس مركز ترتن كأدقي يلا دورشة سنة كان عصب أما قيمة صهر قاعد ترتميسان أو كتير من واحد حلقة من السياسيين حلها سوقت إلا حير حكومة بحياة صومري مثلاً هاي الله إله حلقا ويكوها بونتاي أديك عدد عن إن إسوسو تكتمركا شكرا. جوابت وها وحي هاوتا وحوي ودنكا سيدا عن هذا سؤاله قاركود وجوابي أرنتي سوق السنتهاي حالة أرد بالمريا حالة وحال وجرا ودنك وسنسفع مدقنين سياسيين نبيليهان دغالاهان وسنسفع مدقنين وحان كسو شغين شيء مدة سو شغيني وحان ليهاي حد خوغان iyo khibrad wadanka kan arrimihiisa aan wax uga bedeli karo waxaan uga qaban karo arrimaha aan ku talagalay inaan sameeyo taawee waana ku kalsoonahay aad baan ugu kalsoonahay waxyaabaha aan ama khibrad ahaan aan soo kordhin karo ama hoggaan ahaan aan soo kordhin karo oo meeshaan ka soo gelin karo inay yihiin waxyaabaha loo baahan yahay oo xal u noqon kara dhibaatooyinka hadda aan soo taabtay oo wadanka dhexdiisa ka jira. وقت ما حكينا مركنا كويديو وسرح مدار أو ضد منه في البنتلانا واحد طبعا المشرحين فربضن وأرادوا حتى كم تاي إن ضمت هذا خاص كاي تاي يعني دورشون كانوا كلية أي دلك أي ماذا رئيسا أنت كلا دلك يدلك كور قبل سيد أوجد قرب شوفت بدنا أيضا منين حجانك أنا حلقة قبطان هذا الكلام حكى أمس أنت هذه هذا الكاس هذا دلك هو إسرائيل غبا أنا ودنك dhibaatooyinkii ka socday 40 sano ugu dambeysay waa ku dhex jiray waa noo soo dhacaysay waa fiirsanayay aniga reerkayagu waxay ka ahaayeen reerkayagu reer Yuusuf wixii dhacayay iyo dagaaladii wadanka ama ha ahaadeen ama dowladnimada iyo xalka raadinay ha ahaadeen waxaanu ahayn waa ka qayb galay marka anigu waa fogaa oo wadanka ma joogin laakiin arrimihiisa iyo taladiisa iyo waxa socota xaaladaha socda waa ku dhex jiray oo kama marayn haddii dadkan waa wada hadlayeen dadkii halkaan joogay khibrado ahaan iyo tala ahaan iyo wixii meesha ka dhacayay iyo kama marayn golaha waa ku jiray inkastoo aan physically meesha u joogin haddana waa joogay waa arrinta iyo taladeeda iyo waxaas waxbaa ka ogaa iyo informationkii meesha ka socday iyo wixii meesha ka dhacayay marka musharax cabduldaahir haddii aad xanato xilka madaxtinimo baahiyaha ku muuqda ee qabaan dad iyo dalba Puntland oo bixin lahayd maxay nooga sheegi ka dhaxayna tan ugu horeysa waxa weeye waa nabad in la helo dalka nabad laga dhaliyo Puntland oo kale oo ah meesha haddii anigu aan haatan u tartamayo madaxtinimadeeda in dalka nabad laga dhaliyo Puntland haatan waxaan waqala daadsan tahay waxaa jira degmooyin ka maqan Puntland oo ku jira constitution-keeda xuduuday leedahay qaar waa kala go'doon bay kala yihiin marka Puntland dadkeeda iyo dalkeeda isu keenkiisa iyo xoojintiisa waxyaabaha aan madax ku hayo ku jirta taa markii la soo dhaafo maamul wanaagsan in Puntland laga hirgeliyo oo leh hay-adihii maamulka oo dowladnimo astaamihii dowladnimo isku xirkii dowladda iyo dadka horumarintii dhaqaalaha shaqo abuuridii dalka adeegii bulshada oo ay ka mid tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo waxyaabaha la mid ah in la soo geliyo kaabayaashii dhaqaalaha iyo wadanka iyo isku xirkiisa ama wadooyinkii ha ahaado dekedihii ama ha ahaado gabadhii diyaaradaha ama ha ahaado telecommunicationka wadanka uu leeyahay wadanka iyo isku xirkiisa si loo horumariyo ganacsiga wadanku leeyahay waa in la suura geliyo isku xirka wadanku inuu sahlan yahay si la isaga goosho wadanka dacal ilaa dacal baabuurta u kala socoto dadku u kala socdo xiriirku u kala socdo telecommunication fiican oo si fiican u shaqeynaya uu jiro la abuuro meel shaqooyin fara badan oo dadku leeyahay la abuuro wadanka dhaqaale laga dhaliyo nabadgelyo laga dhaliyo waxyaabaha aan ku haneeyay Puntland taas weeye inta markii laga soo gudbo qarankii Soomaaliyeed baadigoobkiisii in Puntland ay gacan xoog leh ka geysato baadigoobka qaranka Soomaaliyeed helitaanka qaranka Soomaaliyeed sidii loo fulin lahaa loo soo gelin lahaa looga shaqaysiin lahaa wadanka oo dhan xasilooni looga abuuri lahaa in Puntland arrintaas wax ku hogaamiso way arrimaha kale aan doonay aan halkaan inaan musharax uga ahay waxaan la soconaa
xilligan waa gabgabo xilliga loolanka iyo jireen iyo ololaha musharaxiinta waxaa la filayaa in goor la aado si doorashada bisha Janaayo maalmo naga harsan in la aado waxaa jira guddiyo doorashooyin oo guddiga amniga xilligan soo magacaabay oo musharaxiin siyaabo kala duwan habka loo soo magacaabay guddiyada ay uga hadleen marka ilaa xilligan marka guddiga amniga ay agtid iyo guddiyada kale soo wado sida wax kugu muuqda xilligan waxay u muuqdaan waa muhiim in la helo guddi amni waa muhiim in la helo guddi doorasho waa muhiim in la helo guddi khilaafaad intaasoo guddi iyo guddi dhaqameed marjaca oo loo noqdo haddii ay timaado in wax la helo oo wax laysku qabto intaasoo guddi oo lagu kalsoon yahay oo loo dhanyahay oo laga wada tashaday oo dadka dee oppositionka oo musharaxiinta iyo dowladda iyo madax dhaqameedka iyo civil society-ga intuba dad lagu kalsoon yahay oo ah guddi doorasho oo ah guddi xalin khilaafaad oo ah guddigii nabad sugidda ama nabadgelyada doorashada iyo in loo wada tashado processka aanu ku shaqaynayno si dowladda meesha ka soo baxda ay noqoto dowlad loo dhanyahay oo aan shaki iyo wadahadal dambe aan ku jirin doorasho fiican iyo nidaam fiican loo maro loo dhanyahay wada tashi leh arrimahaas saas aniga waxay u muuqdaan in la suga geliyo waxaan inaan ku weydiiyo ma jiraan musharax aad wada socotaan oo isku meel aad ka duulaysaan mase jira musharax aad isleedahay haddii aad adigu hooskaas weydo waa yahay ninka guusha ay raaci doonto horta anigu waxaan isleeyahay ugu dambeyn guushaan ay raaci doontaa arrintaan uga soo kaxay America ama meel fog ka yimid taa weeye arrinta aan aad uga shaqeynayo inay soo gasheen taa weeye waana ku kalsoonahay waana ku niyadsanahay arrintaas inay soo gelisho musharaxiin aanu wada xiriifo oo aanu u nimid halkaan isbeddel inaan ka samayno waddanka taladeenu ay tahay waddanka isbeddel in laga sameeyo runa oo dhaba oo saliya baara oo loo dhanyahay oo nolosha dadka taabanaysa oo abuuraysa tayo wanaagsan oo nololeed waddanka ka abuuraysa rag aanu ka wada sheekaysano halkaan waa joogaan oo musharaxiinta ka mid ah oo aanu ajenda ahaan arrintaas fiiradeena sare aan saa u wada fiirinayno raggaa waa wada sheekaysanaa waxaa naga go-an isbeddel waddanka inaanu ka suura gelino annagoo la shaqeynayna dadka shacabka soomaaliyeed oo halkaan degan iyo madaxdooda ama madax dhaqameed ha ahaadeen dowladdooda in aanu ay gacanta noo soo gasho oo markaas maamulkii oo wanaagsan oo leh laamihii dowladda oo heekalkii dowladdu si fiican u dhisan uu horseedu yahay oo leh maxkamadihii oo leh nabad sugidii oo leh laamihii dowladda oo kala duwanaa oo wax kasta ahaa arrintaa in la suura geliyo dowladdiina la hagaajiyo maamulkiina la hagaajiyo dadkiina uu dowladda ku xiran yahay waddankiina nabad laga dhameeyo dhaqaalihiina horseed loo sameeyo arrimahan rag isku wada ka wada hadallo oo ka sheekaysano aanu meesha u joogno meeshii aanu ka mid aan uga soo kacday arrimahaasaa ka mid puntland waxay ka mid tahay maamulada dalka ka jira soomaaliyana waxaa ka jira xilligan dowlad federaal loo sheegay tahay dowlad rasmi ah waxaa jira xilligan khilaaf ka dhex jiro sida ogtahay oo xililku uusan wanaagsaneyn dhinaca dowladda iyo markaa dhigtid iyo maamulka puntland oo ka maamulada ugu xoogan ama dhismo xataa dowladda lagu sheeganaya uu qayb ka ahayn dowladda xilligan timid adigu saaxiibo ku leedahay marka xafiisyada dowladda ee xilligan maadaama doorashada xilliga imaanaysa ay isla xukuumadda ku soo aadayso dabcan ku guulaysta xataa dowladda dhexe dowladda dhexe dad waa ka aqaanaa nima saaxiibada ayaa wasiirka ka ah madaxweynaha waa la kulmay wada shaqeyn naga dhexaysa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirada midna ma jirto laakiin raggan ka aqaana meesha waa joogaan muhiimaddu waxaa weeye ikhtilaafaadka ka dhexeeya puntland iyo dowladda dhexe oo soomaaliya arrimahaas in wax laga qabto waa muhiim in la xaliyo muhiim weeye ikhtilaafaadka jira sabab bay u jiraan in laga wada hadlo oo la iska arko oo xal loo helo waa muhiim weeye arrimahaasu dowlad goboleed puntland ah oo maamulkeeda iyo haykalkeeda siyaasadeed uu degan yahay xasiloon yahay wada dheer yahay in la helo waa muhiim arrintaa waxay muhiim u tahay dadka puntland gobolka degana ee horumarkiisa ayaa u baahan qarankii soomaaliyeed baadigoobkiisiina waa loogu baahan yahay isafgarasho iyo wadaxaajood in la helo maamulka dowlad goboleedka puntland iyo dowladda dhexe waa muhiim waxaan isleeyahay arrimahaas in la suura gelin karo waxaan wadanahay guddigan soomaali weeye ikhtilaafaadka jira waxbay u jiraan sababbay u jiraan waxay yihiin in la ogaado weeye sidii lagu xallin lahaa iyo arrimahaas sidii loogu heli lahaa xal waara soomaaliyana ay isugu wada imaan lahayd loona heli lahaa dowlad qaran oo lagu heshiis lagu yahay iyo constitution qaran oo heshiis lagu yahay in la helo waa muhiim waa laga maarmaan dowladda puntlandna roob xoog lay ka ciyaaraysaa haddii arrimahaas sidii loo suuragelin lahaa waa tahay gabagabada soo gaarnay ugu dambeyn waxaa jira inaan ku weydiiyo si ay doorasho xaq oo xalaal ay u dhacdo
مجران ربنيا الله ده حال رائع يتلون أن أسوة جديد هجان كمشرحين تدرن كأي شعبكم روح يا بابا حدات عن صور شيء نظام وناكسن ودور الشور ولو كلسوني هاي ولا سكوك عسيه هاي ولا تشيل جباري إنه حكى كله هو مهم جود خلافات ولا تشكي ولو هاي ولا مدرسية هاي إنه هو مهم جودي من الجريو والصباح من الجريو الدلكة iyo doorashada system keeda process keeda guddi suga waqtiga doorashada lagu jiro in nabadgelyo fiican la helo guddi suga musharaxiinta iyo hadee dadkii oo dhan waxay isugu tagayeen garowga markaas waa in nabadu ay aad u sugan tahay oo xasilooni wanaagsan ay jirto marka arrintan muhiim weeye marka process fiican oo tii doorashada lagu geli lahaa inay jirto inuu jiro guddi khilaafaad inuu jiro guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay inuu jiro guddi nabadgelyo intaas oo guddi oo laga wada tashaday madax dhaqameed dadka oppositionka oo musharaxiinta odayaasheena oo dhan dalka oo dhan civil society oo dhan shacabka oo dhan wax loo wada jeedo indhaha lagu hayo oo la ogyahay in laga wada tashaday oo lagu wada kalsoon yahay in la sameeyo intaas oo guddi aan sheegayo waa muhiim waxa kaloo muhiim ah dalku wuxuu baahan yahay baarlamaan tayo leh oo fiican baa dalku u baahan yahay dowladdu ma shaqayn karto ama shaqadeeda si fiican uma gudan karto haddii uusan jirin baarlamaan wanaagsan codka shacabku iyo kalsoonida shacabku waxay ku jirtaa baarlamaanka shacabka doorta beeluhu ka imaanaya baarlamaanku isagoo ka tarjumaya xilkii uu shacabku u hayay iyo codkii shacabku isagoo ku hadlayo ilaa baarlamaanka afka shacabka ku hadlaya madaxweyne doortaan iyo madaxweyne ku-xigeen marka in la helo baarlamaan tayo leh khibrad leh oo khibrad u leh dowladda isagu sharci samayntii khibrad u leh miisaaniyaddii iyo dejinteedii khibrad u leh kormeerkii dowladda inay kormeeraan oo la xisaabtamaan dowladda baarlamaan noocaasa in la helo iyaduna waa muhiim dhowrkii waxyaabood aan ku soo sheegay oo guddiyada ku saabsanaa iyo golo shacab oo aad iyo aad u wanaagsan oo aan rajaynayo beeluhu inay soo xulaan dad istaahila oo geeya xilka loo diri doono oo dowladdii puntland shuruucdeedii inay sameeyaan maxkamaduhu sharciyada ay ku shaqaynayaan baarlamaanku ka yimaada marka baarlamaan sharciga yaqaano oo sharciga sameeya in la helo oo aad u dhisan oo leh dee hogaankiisii iyo staafkiisii iyo sharci samayntii iyo wixii oo dhan leh in la helo waa muhiim si maxkamadihii u shaqeeyaan maxkamadihii in dhisa muhiim weeye baarlamaanku inuu u leeyahay khibrad ama golaha shacabku inay leeyihiin khibrad ay ku dejiyaan miisaaniyadda dalka iyo programska dowladdu hadhow fulin doonto ilaa lacagta waxaa lagu bixiyaa program baa lagu bixiyaa lacagta dowladdu waa inay keento waxyaalaha ay samaynayso shanta sano soo socda maxay qabanaysaa wasaaraduhu maxay qabanayaan waxa wasaaraduhu fulinayaan oo micnaysan inuu 1 2 3 4 5 wasaarad kasta xilkeeda iyo mas'uulkeeda muxuu yahay markaas lacag lagu bixinayaa oo leeyahay idinka waxa lagu qoondeeyay lacagta tareleg programada noocaas ah ku fulisaan hadhow programadii markii lacagta lagu siiyo la dhex galada de programadii ku xisaabtamayaan wixii lacagta aan ku bixinay ma fulin mise ma fulin waa kormeerka dowladda marka golo shacab oo noocaas ah oo arrimaha kala duwan oo sharci samayskii dejintii miisaaniyadda iyo kormeerkii dowladda golo shacab oo sameeyay in la helo waa muhiim haddii kale waa inaan haysan golo shacab oo aad iyo aad u shaqeeya arrintaasna ka soo bixi kara dowladdu waxyaabaha hadda wax nooga xumaadeen oo dowladda jirta ay wax uga qalloocdeen waxaa ka mid ah golo shacab oo aan uga xisaabtamin sidii ay ahayd inay uga xisaabtamaan oo waxaad moodaa dowladdu waxay doonaysay iska samaynaysay golihii shacabkana ama fiirsanaya ama ka aamusnaa marka waxaan rajaynayaa golo shacab inaanu helo oo xilkaas loo xil saaray iyo kormeerka dowladda aad uga shaqeeyay gacanta soo gabagabeynaa waraysiga gaarka ah oo la yeelinay musharaxa xilka madaxtinimada Puntland Cabdidaahir Maxamed Yuusuf Yeey oo kamid ah musharaxiinta xilkan u taagan xilka madaxtinimada ee Puntland ee doorashada la filayo inay ka qayb galaan dhacaysa Janaayo 8 daawada waraysigan gaarka waxaad kala socoteen waa shabakada caalamiga ee xariir.com adiga Maxamed Jaamac la socodsiinay aad baan ugu mahadcelinaa waqtiga oo la siiyay musharax Cabdidaahir